Tani waa Salame, waa hooyo 25 sano jir ah oo dhashay 2 caruur ah oo ku nool Itoobiya. Ninkeeda Abaai waa beeraley, cuntada uu ka soo saaro beertiisa ayaa ah dakhliga kaliya ee qoyska soo gala. Sanadkii hore abaar ba'an ayaa saamaysay badi dalagyadii qoyska oo laysayna dhammaan xoolahoodii. Salame iyo ninkeedu waxa ay go'aansadeen in ay isku daydo oo ay doondoonto shaqo si ay u kaabto qoyska. Laakiin Salame magaaladeeda waxaa aad ugu yaraa fursado shaqo. Salame ayaa aragtay qaar ka mid ah deriskeeda oo xuduudda ka tallaabaya oo tegaya Hargeysa Somaliland iyaga oo shaqo doon ah. maadaama ay aad u doonaysay in ay caawiso qoyskeeda, Salame waxay go'aansatay in ay u wareegto Hargeysa oo ay tijaabiso calafkeeda. Safarka Hargeysa ay ugu ambabaxday waa uu adkaa, masaafo dheer ayaa ay lugaysay iyada oo qorraxdu aad u kululayd, cuntada iyo biyuhuna ay ku yaraayeen. Salame waxa ay ugu dambeyn tagtay Hargeysa waxaana ay raadisay meel ay si ku meel gaar ah ugu sii noolaato. Dadkii kale ee Itoobiyaanka ah ee joogay Hargeysa ayaa ay Salame ka wareysatay shaqooyinka ay heli karto. Kadib markii ay bil raadinaysay shaqo, Salame waxa ay heshay shaqo adeegtinimo ah, taas oo uu ka caawisay qof jaaliyadeeda ka tirsanaa. Gabadhii doonaysay in loo shaqeeyo ayaa u sheegtay inay bixin karto kaliya $50 bishii. Waa ay ogeyd in aanay lacagtu badnayn, laakiin ma lahayn awood ay ku gorgortanto maadaama aanay aqoon afka deegaanka looga hadlo. Gabadha ay u shaqayso ayaa Salame siisay qol bannaan oo gurigeeda ka mid ahaa, laakiin qolku aad buu u yaraa mana lahayn daaqad. Adeegtinimo ayaa ay ku shaqaysay muddo 3 bilood ah, saacado dheer oo ka badan 12 saacadood maalintii. Muddadaas lama siin wax mushahar ah. Salame ayaa ku dhiiratay in ay gabadha ay u shaqaynaysay ka dalbato mushaharkeeda. Salame waa ay xishoonaysay oo ma ahayn mid dhiiran maadaama Soomaaligeedu uu aad u yaraa. Gabadhii ay u shaqaynaysay wax weyn kama soo qaadin hadalkeeda, waxaana ay u sheegtay Salame in mushaharkeeda la siin doono bisha dhammaadkeeda. Salame aad bay uga carootay oo waxa ay ka walwalaysay qoyskeedii oo ay kaga soo tagtay Itoobiya, iyada oo kaliya ayaa qoyska u shaqaynaysay waqtigaas oo mushaharkeeda ayaa ahaa dakhliga kaliya ee soo gala qoyska. Maalintii xigtay ayaa Salame ay booqatay saaxiibadeed Zuri, waxaana ay u sheegtay walwalka ay qabto ee ku saabsan shaqadeeda. Zuri ayaa waxa ay Salame geysay xarunta jaaliyadda Itoobiya oo ku dadaasha in ay gacan siiso muhaajiriinta ay ka mid yihiin shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ay dhibaatooyinku soo wajahaan. Xarunta jaaliyadda Itoobiya kadib markii ay dhageysatay arrinteeda ayaa waxa ay Salame u gudbisay guddiga xuquuqul insaanka. Guddiga xuquuqul insaanku waxaa ka go'an in uu sii wanaajiyo ilaalinta xuquuqaha aadanaha, isaga oo wax ka qabanaya xadgudubyada iyo cabashooyinka xuquuqda aadanaha iyo isaga oo yareynaya u sinaan la'aanta fursadaha shaqada. Guddiga xuquuqul insaanka ayaa gudoomay cabashadii Salame waxaana uu ku guuleystay in uu xalliyo khilaafkii ka dhaxeeyay Salame iyo gabadhii ay u shaqaynaysay. Salame ayaa ugu dambeyntii heshay mushaharkeedii oo awoodayna in ay biil u dirto qoyskeeda. Inkasta oo ay soo gashay safar dhib badan iyo shaqo adag, iyada oo mahaddeeda u leedahay guddiga xuquuqul insaanka, Salame waxa ay ogaatay xuquuqdeeda iyada oo ah shaqaale soo hijrooday, waxaana ay awooday in ay sii wanaajiso xaaladdeeda. Hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta, The International Organization for Migration (IOM), ayaa dalalka bariga iyo geeska Afrika kala shaqaysa sii wanaajinta maamulka muhaajiriinta shaqadoonka ah iyo ilaalinta shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo xuquuqaha aadanaha, kuwa bulsho iyo kuwa shaqo ee xubnaha qoysaskooda.